dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay safiirkii dowladda Kenya ee u fadhiyay magaalada Muqdisho iyadoo ku amurtay inuu dalkiisa dib ugu laabto. sidoo kale waxay u yeertay safiirkeeda ka jooga magaalada Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarzan. dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, isla markaana ay madaxweynaha Jubbaland la kaashanaysa sidii ay u fashilin lahayd heshiiskii doorashada. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u muuqataa in dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe si uu u fuliyo qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya laga gaaray ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka dowladda Soomaaliya. sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in safiirka loogu yeeray wadatashi la xiriira faragelinta Kenya oo ay sheegtay dowladdu inuu caqabad ku yahay horumarka Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. dhaqamada Kenya waa kuwa ka baxsan derisnimada iyo heshiisyada diblomaasiyadeed ee caalamka, sidaas darteed waxaan la tashi ugu yeernay danjiraheena dowladda Soomaaliya ma aqbali doonto fal kasta oo wax u dhimaya madaxbanaanida iyo deganaanshaha dalkeena, ayuu yiri xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo warkan soo akhriyay.